madaxweynihii hore ee Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa si kulul u cambaariyay xariga loo geystay wariye Cabdicasiis Gurbiye oo ka tirsanaa warbaahinta Goobjoog. madaxweynihii hore ee Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ka digay dhibaatada xariga oo uu ka mid yahay ee lagu hayo wariyaasha. waxa uu sheegay madaxweynihii hore ee Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud in hannaanka dimuqraadiyadda Soomaaliya aysan caawinayn dhibaatada wariyaasha. dowladda federaalka ee Soomaaliya ayuu ka codsaday joojinta xadgudubyada lagu hayo wariyaasha Soomaaliyeed meel walba oo ay joogaan dalka. xiritaanka wariye ka howlgalaya Muqdisho oo ka tirsanaa warbaahinta Goobjoog ayuu sheegay madaxweynihii hore ee Soomaaliya inay tahay mid ka baxsan hannaanka dimuqraadiyadda ee dalka, isla markaasna warbaahinta lagu caburinayo in loo hajamo oo la xidho suxufiyiinta si loo aamusiyo ma caawinayso dimuqraadiyadda dalkeena aan jecelnahay ee Soomaaliya. xadhiga wariyaha Master Gurbiye kana tirsanaa warbaahinta Goobjoog waa calaamad muujinaysa dhaqan kalisnimada oo soo socda. sidaasi ayuu yiri madaxweynihii hore ee Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud.